بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ورسولك صلى الله عليه وسلم قفك الدين تسبدل ديل أبو النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ليال قفك هدي أو يدين إسلامك هدي أو قفك عايو أما أو دلعيو ama aw tacniyo ama rasuulka sallallahu alayhi wasallam ba aw aaya ama malaa'ikta qofkaasi ku gaaloobaya. Nabiguna alayhi salaatu wasalaam xadiidka Imam al-Bukhari aw soo saaray wuxuu inoogu cadeeyay qofka diintiisa bedela oo diinta ka baxa dil Abu Nabi sallallahu alayhi wasallam xukunkiisu waa dil weey. Nabiguna alayhi salaatu wasalaam waqtigiisii waxigu soo degayay oo aayadaha Quraanku ay rasuulka ku soo degayeen baa nimankii munaafiqiinta ahaa waxa ay dhaleeceeyeen saxaabada nabiga alayhi salaatu wasalaam iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam bay dhaleeceeyeen. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku soo dejiyay aayada Quraan uu nabiga ku soo dejiyay aayadkaas oo Ilaahay ku tilmaamayo gaalnimada ay ku dhaceen iyo say u gaaloobeen. Ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala: wala in sa'altum la yaquluna inma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da iimanikum. Ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala haddaad weydiiso oo aad tiraahdo ama aad tirahdaan maxaa nagu kalifay inaad diinta wax ka sheegtaan ama aad saxaabada caydaan, waxay oranayaan waan dheeldheelaynay, waan kaftamaynay, dariiqa ayaan ku maraynay, kaftan bay naga ahayd. Ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala: la ta'tadiru qad kafartum ba'da iimanikum. Ha'udur daaranina waad gaalowdeen iimaan kadib baad gaalowdeen, intaad iimaan sheegateen kadib ayaad gaalowdeen. Waxaad sameyseenna waa wax gaalnimo ah. ولا ليال إلهي رسول كيسي دين طلعي كفتن ملء عيارنا ملء واحد دوسر دبا قفك أرنتها أو سمايه هدوسر كفتن أو سمايه واسكو مدوي هذا بالكن وحن كعضينا يا ونكبي يمين يا مانتا أو بشا في فبراير تايكو وافقسنا تضبطي بشي اللي حتكون يا أفر بقولي كوبي أفرتن كيجرده شالي ما هنا دراد halkan hotelkan rays waxa ka dhacay xaflad baa ka dhacday. xafladda waxa ka soo qayb galay barasaabkii gobolka Cabdiraxmaan Axmed ayaa ka soo qayb galay. wuxuu halka uu ka sameeyay runtii wax aad iyo aad ay dadku uga yaabeen oo dhalinyartii ka argagax galiyay oo aad ogtihiin oo laga yaabo in meelaha qaar koodna laga hadlay, jamciyaha laga hadlay, masaajidda laga hadlay. ninkaasi wuxuu si badheera oo cad أو أعاي إلهي سبحانه وتعالى دينتو عاي ماشي جوده هذا وكعاي ديودنا أوصى بحياة بنان كنا وكعاي أرنتها سي أنا جوادي أدبان شخصيا أيان إسكود دي إنا بارو أنت أنا كهذل وأنا ذوحي بارو وان باري ضدكي جوجا هذا هذه وحن أفكو ذا كسوق هذا صدق قف ووين ومذكرة أو لغة قاتنا ودد maanta dhacdhacan lahayna oo mas'uuliyiin laba kamid mas'uuliyiin sare ay yihiin ayaan ka soo qaaday afkoodan ka soo qaaday inay dhagahooda ku maqlayeen meeshan ay taagnaayeen ay joogeen. waliba qaarkood waxay cadeeyeen ninkaasi marar badan oo kale inuu diinta caay oo saddexda qof ee afkooda ka qaaday mid kamid ah wuxuu cadeeyay mar kale oo hawl kale laga hadlayay أنا هذا ندقه يكون مقليل مركل لبض شهر بكم مرخاتك عاي مر هره إيو وحويان الضرهاد وجوجوج أوها مركا برصابكو دوام مدحوينوي والرئيس أما وحن رانكنا دوام مدحوينها قبل كيساق الله حساري وفكي مدحلها مسؤول كها ومضلا طارتي ومظهر جوجي هدي أو دليرتي دايرتها دحدوده أو دينتا كعاي runtii wax la qisan karo ma haarintaasi si fudud bay iyaguna u caayaan oo diinta u caayaan markay qofka weyn arkaan oo diinta caay qofkii madaxda oo diinta caay waxa la yiraahdaa annaasu ala diini mulukihim dadku kolba madaxdooda iyo dadka u taliya ayay diintooda leeyihiin. arintaasi waxa loola jeedaa dadku waxay ku dayanayaan qofka madaxda ay ku dayanayaan, dhaqankiisa ku dayanayaan, akhlaaqiyadkiisa ku dayanayaan, waxqabadkiisa ku dayanayaan. marka qofka noocaas ah markuu ummadiisa hor joogsado oo madax u noqdo oo mas'uul noqdo oo gobol dhan aw ka taliyo
ودadkiina ay arkayaan inuu mar iyo laba iyo saddex arrimaha una ku dhacayna in ka badan oo ku dhacayo runtii waa wax aad iyo aad loola yaabo weeye marka waxaan leeyahay Cabdiraxmaan Axmed ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobadkeen marka koobaad waad gaalowday waa gaalow cad weeye cudurdaar male kaftu waan kaftamayay waan xanaaqsanaa male in badan bay arrintaas ay dhacday inaan iclaanka halkan ka hadalnana waxa keenay isagaa si publica oon xishood lahayn dadka dhexdooda diinta uga caayay boqolaal qof baa arrintii qaaday suuqay gashay meel kastay martay waxaa laga yaabaa in badan inay ku aafoobaan oo ay u arkaan bade waxaan inuu yahay wax iska caadiya waxa kaloo igu kalifay maanta inaan halkan aan ka hadlo kelmadan aan ka sheego waxa laga yaabaa in dadyowga qaarkood ay u arkaan in la dhaleecaynayo ama wax laga sheegayo ama lagu xadgudbayo waa arrin dhacday waa arrin aan hubinay waa arrin gunteeda aan gaadhnay waa arrin anigoo hadlaayay aan saddex qof oo muhiim afkooda ka qaaday way marka ilaahay u toobad keeno ilaahay baa loo toobad keenay ilaahay ha soo noqdo Cabdiraxmaan wa tuubu ila Allah jamii'an ayyuha almu'minuuna la'allakum tuflixuun ilaahay u toobad keeno si dhaba ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu toobad keen arinta labaadna ilaahayna waxa weey madaxweynaha wadanka madaxweyne Muuse waxaan leeyahay isagana waxaan leeyahay mas'uuliyad baa ummadda ka saaran mas'uuliyad weyn ayaa ka saaran mas'uuliyadda ka saaran ummadda aad u qaaday waxa kamid ah cid aad u xulayso dadka mas'uul uga dhigayso inuu noqdo qof mudakara oo ummadda u naxaya oo dadka u turaya oo amaane leh oo hantida ummadda aan boobin oo dadnimo leh oo diin leh oo akhlaaq leh inuu qofku noqdo way ilaahay subhanahu wa ta'ala maalinta qiyaamah uu ku soo taagi doona madaxweynuhu kana madaxweynaha iyo kana raaciyada ma kala leh qof kastiba ilaahay baa soo taagi doona isagoo qaawano cagaagan ilaahayna waa la xisaabtamaya mas'uuliyadda ku saaran waa mas'uuliyad culus way maalinta qiyaamana qofka ummadan loo soo joojinayo ummadan kii gaajo u dhintay iyo kii diin darro u dhintay iyo kii xaqiisii la boobay xaqiisii la duudsiiyay iyo kii la dhacay qofka loo kii dhigiisii la daadiyay ka loo soo joojinayo wax sahlan ma wax lagu ordana maaha mas'uuliyadaasi ilaahay oo ku saaray iyo xilka aad hayso inaad ilaahay subhanahu wa ta'ala kaga cabsato oo dadka aad meel u dhiibayso iyo kana xisbigayga iyo kana inayna noqonin ayaa wadi kara la yiraahdo ayaa mas'uuliyadda qaadi kara ayaa ummadan u turi kara ayaa wadanka hagaajin kara inaad tirahdaan waxaad moodaa maanta waxa wax lagu dooranayay reer hebel baa ka maqan ayaan ku buuxinaan way rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyati wal imaamu raa'in wa mas'uulun 'an ra'iyati nabigu sallallahu alayhi wasallam qof kasto idinka nigamidihi waa ilaaliye waa mas'uul way mas'uuliyadana waa loo idin maalinta qiyaamah imaamku ama qofka mas'uulka ah ee ummadda ay dooratay ee ummad u taliyana waa raaci waa ilaaliye ummadda oo dhan baa isaga loo diray maalinta qiyaamana ilaahay subhanahu wa ta'ala waa weydiin doona marka waxaan leeyahay oo madaxweynaha leeyahay dooranaysa cid wanaagsan ha noqoto cid wanaagsan oo ummaddu ay ku raysato oo wax u qaban karta ha noqoto dhalinyartana waxaan leeyahay dadka noocaas oo kala ah aadka u liita muxuu ahaa dhaqankooda u liito qofku hadduu khaldan yahay in lagu dayda maaha in diintiina aad ilaashataan oo diintiina aad muxuu ahaa aad xifdidaan diinta inaan ilaalin dhammaan way nooda saaran tahay culimo iyo muxuu ahaa caamo iyo madax iyo intaba inaan diinteena xifdino ilaalino ayaa dhammaanteenba ina saaran marka waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ninkaasi ma istaahilo mas'uuliyad ma istaahilo halkan inuu mas'uul ka noqdo ma istaahilo meel kale in la geeyana ma istaahilo waayo halkan wuxuu ka sameeyay uu meel kale hadii la geeyana aw sameyn doona marka waxaan madaxweynaha ka codsanaynaa inuunan halkan mas'uuliyad ka haynkaasi meel kana aan loo dirin ee loo yeero oo waxa weeyaan ilaahay toobad keen la yiraahdo haduu toobad keenana dhaqan celin oo galade oo masaajidda oo galo ilaahay toobad keen oo dhaqankiisa wax badan aw ka bedelo ummadda oo ka mid noqdo ilaahay subhanahu wa ta'ala khayrka inoo fajiyo adduunyo aakhiraba wa sallallahu wa sallam wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam